السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا maanta wuxuu ku saabsan yahay ceelkan halka iyo Yemen ayaa maanta موضوعنا ku saabsan yahay isoo raaca Yemen ayay maanta ka hadlaynaa taariikhiga ceelkan oo jeedin intaan ukumo oo ku jiraan iyo ukumaha ay waxay yihiin iyo ceelkan wuxuu ku saabsan yahay iyo dadka waxay ka aaminsanaan jireen mooro shaydan tahay ceelkan isoo raaca reeta oo ujeedii inay mooro shaydan tahay shaydan uu ku jiray oo cid gal karta aan jirin oo xalda habeenkii markii la gaaray wax kheylinayaan hadii qof hadoo galay inuu jirkiisa saafi oo soo bixino maqaarka dhan laga soo siibanaaya inuu ku jiro yaxaas oo ku jiro yaxaaskaas oo cunaaya inuu maxaldahay sheeg oo yani khuraafaad badan laga aaminsanay wuxuu korto ku jiro Allah subhanahu wa ta'ala ayaa og laakiin teamkan markay galeen meesha ay galeen ceelkan ay ka baxnaan dooneen horta ceelkan sida ujeediinba ceelkan wuxuu qodan yahay 112 mitir ayuu hoos u qodan yahay wuxuu ku yaalaa dhulkan saxaraha oo يعني dhinac Cumaan xigta oo Mehral dhahaaya ayuu ku yaalaa buur korkeeda ku yaalaa buuro korkeeda oo yani buuro badan ka dhaxlahooda special buur korkeeda ayuu ku yaalaa ceelkaanita ku yaalaa waa dhul saxare waa sida ujeedinba dadkan teamkan waxay dhahooyaan biyihiisa sida biyaha samsamka camal u dhadhamayaan anaga waan cabnay waan dhadhaminay biyaha samsamka camal iyo biyahan ayaa isku dhadhan aad ay u macaan biyihiisa waa cabnay wax dhibaato aan ku aragnana ma jiraana wax kale oo yaxaas aan ku aragna ma jiraana just waxaan ku aragnay ina yani masas badan ay oo leeyahay masas badan ay yani masas yani waa fahmi kartay masas yar iyo masas waaweyn intaba oo isku dhex jiro ina yani ceelka ay ka heleen iyo maxal dhahay sida ujeedin ninkan hadda meeshan taago wuxuu dhahay berigi yaraay ayaan imaan jiray berigaas ayaan meeshan yani waa ku tamanay jiro inta imaada korka fiiriyaan ka tagi jirnay waa ka cabsan jirnay haddana maanta 6 saacadood ayaan waqti ku qaatay u dhahay meesha aan joognay marka sida ujeediinba masaskan ayay ka dhax arkeen oo bis masaskan iyagoo kuwan oo waaweyn iyagoo yar bas wax kale maysan ka arkin teamkaneeti oo wixii laga aaminsanay oo ka aaminsanaayeen inuu yaxaas ku jiro inuu shaydan ku jiro shaydanku ugu weyn inuu meeshan ku jiro inuu habeenkii wax ka qeylinaya inay meel badan tahay la sanka la saari karin waxaas ka aaminsanay laakiin ceelkan sida ujeed gudaha daaqal migi loo soo gala waa shalaal meeshan saan dhibcad ujeed biyaha shalaalka ku dhacay shalaalka yani biyaha oo yani biyaha soo dhacay Soomaali saas camal la dhahay shalaalka ama sida kastiin waa biyahan oo sida oo buuraha ka soo deganaa camal biyaha soo deganaa oo dabiici soo deganaa buurta ka soo dhaxbaxay biyo aad u macaan badan biyahaas oo leeyahay wax urkii sheegaya malaha hawo ina leeyno hawo ad neefsi karnay sheegaan laakiin inta teamkan waxay cadeeyeen in 6 saac meesha ku jireen ee lagu neefsan kara oo hawa caadi normal oo leeyahay aftinka banaanka imaadana oo meeshan oo deeqa aad aftin u tahay oo nuuraysa wax dhib aan ka jirin just masaskaas maahana wax kale oo dhibaato kale ay jirin aad meesha u fiican tahay biyaheedu macaan tahay hawadeedu u fiican tahay riixada ay sheegayaan aysan ka arkin intaas oo sana waxa laga aaminsanay meeshan inay yani loo dhawaan karin meel halis ay tahay meel shaydan ay tahay inkastoo yani Yemen sida ogtihiin baad leedahay taariikh badan ay leedahay insha Allah yani taariikhdeedan ka hadla doona in Ilaahay karim laakiin ceelkan waxay la abaareen ayaan taandana newska xataa BBC soo qaatay ina ceel special oo ahaa ceelkan oo laga cabsan jiray in teamkan ay soo ogaadeen marka insha Allah programkeena ceelkan iyo ku saabsan yahay daawasho wacan